wasiirka dhinaca ciyaaraha wasiir maxamed abduqaadir wasiir ku-xigeenka dhinaca ciyaaraha Maxamed Dahabo wasiirka arrimaha gudaha taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir agaasimaha madaxtooyada agaasimaha guud ee wasaaradda la taliyaha madaxweynaha iyo dhalinyarada kasaafada iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan fadhis dhammaan iyo xilwaan caasi koosto maama waa salaamanta dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagoo ku hadlayo magaca afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka ugu horeysay inaan ka soo dhex muuqanin maalinta xuska ee dhalinyarada Soomaaliyeed tani markii wasaaraddan la magacaawday waxaan marka ugu horeysay kala qayb qaadanay wasaaradda maalinta toddobaadka ee xorriyadda haddii ahaalada nadaafadda haddii ahaalada dhirbeerista iyo qaybaheeda kala duwan golaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxaa loo aasaasay ama ujeedkiisa hadda wuxuu ahaa inaan magacaawista nolol muujiyey hadafka madaxweynaha oo yahay in waddankaana qof iyo cod la gaarsiiyo ka dhalinyaro ahaanna waxaan nolol doortay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan haddii ahaalada maamul goboleeda haddii ahaalada dhalinyarada gobolka Banaadir iyo dhammaan qaybaheeda kala duwan in aan qof iyo cod dhalinyarada Soomaaliyeed inay codkooda ay ku ciil baxaan inay isgaarsiiyaan ayaan golahaan u taaganahay waana hadafka madaxweynaha oo hadafkiisna inaan ka dhameeyno waxaana diyaar u nahay madaxweyne dhalinyarada diyaar ay ku yihiin haddii ahaalada inay dagaalka kula qayb qaataan haddii ahaalada dhanka doorashada dhan walba iyo hadafka aan leedahay in aan garabka taaganahay maanta waxaan u taaganaano waa xuska dhalinyarada SYL waddanka waxaa xoriyay waa 3 dhalinyaro maantana waa ka badanana waana ka awood badanana waana ka aqoon badanana waxaan aaminsanahay wax badan in waddankan qaban karno oo aan wax ku soo kordhin karno madaxweyne maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan waxaan fadhiyo maamul gobolada dhammaan hogaamiyahooda qaar ka mid ah way joogaan waxaan ku jirnaa abaabulkooda maamul gobolada dhan walba ay joogaan in aan isku wada xirno shir in aan u qabano isku xirkood guud in aan ka wada shaqeyno anagoo wasaaradda dhalinyarada ciyaarahan kaasanayno waxaan intaasna ka shaqeynaa midnimada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed isku xirnaanaadeen maantana waxaan u joognaa waa xuska dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa farxad weyn oo ah in aan qayb ka nahay sidoo kale golaha waxaa qayb ka ah dadka baahiyaha naafada oo runtii dadka ugu mudan ee maanta inay wax waddanka qabtaan waxaa hadda nala joogo walaaseen Amal Cabdullaahi oo hadda qayb ka ah halkan fadhido madaxweyne golaha waxay wax walba diyaar ku yihiin inay garabkaaga istaagaan dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh